السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قاليga kusoo dhawaada barnaamijyadeena iyo lagjaradena caafimaadkeena. Haddii ila raado waxaan ka hadlaynaa lagjarkeena taxanaha maadada ocular microbiology. Waxaan ka hadlaynaa maanta fungi keratitiska. Hore waxaa ugu soo hadalnay bacterial conjunctivitis oo ku nool normal flora ku nool conjunctiva mataqaana intaas oo nooc kaga soo hadalnay. Haddii ila raado maanta waxaan ka hadlaynaa fungi keratitiska. fungi keratitiska markaan ka hadlayno laba nooca ugu weyn. nooca koowaad waxaa loo yaqaanaa yeast ama waxaa kaloo la dhigaa Gonus Candida loo yaqaanaa. waa markii oo characteristics laga hadlayo waa unicellular organisms oo hal seelaha ah. Most common cause wuxuu cause gareeyaa bacteria fungi keratitiska. markii guud ahaan laga hadlayo waa midka ugu caansan waa yeastiga. wuxuuna ku sameysmaa temperature oo temperature climate cimilada oo temperature ayuu inta badan ku sameysmaa. Villamentos waxaa kaloo dheeraa genera Fusarium ama waxaa kaloo dhihi karaa Aspergillus. asiga marka waa multicellular kii hadday meesha ka ahaay hal seele kan waxaa waa cellal badna waa organismska cellal badna waa. wuxuuna producer soo saaraa tubular projection loo yaqaano tubular kaasoo mataqaana loo yaqaano hyphia. marka waxaa jira marka bacterial badan aan ka hadlayna marka keratitis marka fungi badan aan ka hadlayna. fungi koowaad aan ka bilaabeyna waxaa loo yaqaanaa Acetamoeba keratitis ayaa loo yaqaanaa. Acetamoeba keratitis asiga wuxuu ku noolyahay free living wuxuu ku noolyahay protozoa. waana most common found meelaha ugu badan laga helayo waa carada laga helaa. sidoo kale fresh meelaha oo mataqaana freshka waterka laga helaa. inta badan biyahan caadiga ayaa laga helaa. marka sidoo kale wuxuu mataqaana Acetamoeba keratitiskan asiga mostly waxaa lagu arkaa dadka xirta contact lens balasha indhaha dadka xirta ayaa lagu arkaa. nooca saddexaad aan ka hadlayna waxaa loo yaqaanaa nooc labaad ka hadlayna waxaa loo yaqaanaa marginal keratitis asiga waxyaabaha sabab waxaa waa prestigious reaction inuu qaab jirka difaaca jirka reaction oo ka dhaco. reactionkaas markuu dhacayna waxaa la reaction laga bixinayaa bacteria loo yaqaano Streptococcus exotoxin sidoo kale iyo cell wall proteinska. noocaas afraad aan ka hadlayna waxaa loo yaqaanaa infection crystalline keratopathy. asiga aad uma badno waa rare waa unknown conditions xaalado inta badan aan la arkin waa uncommon waa aad u badnayn. waxaana inta badan oo la xiriira patientiga mataqaana isticmaala stereotherapy daawooyinka isticmaala mataqaana daawooyinkani oo steroidka dadka isticmaala mostly lagu arkaa. waxaa kaloo jira bacterial keratitis and corneal ulceration qaabka ku sameysma. bacteria ku dhaca keratitiska iyo corneal ulceration qaabka ku sameysma. most seen inta badan waxaa lagu arkaa bacteria keratitis iyo corneal ulceration patientiga oo bacteria conjunctiva qabo. bacteria conjunctiva hore ugu soo hadalnay noocyadeeda. marka nooc ugu badan mataqaana corneal ulceration sababana waa Neisseria gonorrhea. bacteria loo yaqaano Neisseria gonorrhea mostly ilmaha yariiska dadka waaweynka ku dhacaa. ilmaha yariiska tirood wuxuu soo maraa genital oo mataqaana haddii hooyada ay qabto markii cunuga lasoo mataqaana kasoo baxay bath canalka ayuu mostly soo qaada. dadka waaweynkan waxay ku qaadaan sexual transmission of disease cudurro la kala qaadaya ay ku qaadaan oo galmada lagu kala qaada. marka waa nooc ugu badan corneal ulceration sababo haddii qofka laga daaweyn waayo si dhaqsi ah. marka waxaa jira marka most common cases oo predisposing most common cases oo corneal ulceration inuu dhaco waxyaabahaas sababa. waxaa kamid ah contact lens wear saa hore usoo sheegnay dadka isticmaala contact lenseska corneal ulceration inta badan ku dhaco. sidoo kale chronic blepharitis anatomical ahaan cudur ahaan waa kaga soo hadalnay. blepharitis-ka dadka blepharitis-kaasi mataqaana qaba oo chronic midka acute ma. sidoo kale tracheosis asigana waa kasoo hadalnay. waa eyelasheska oo gudaha u gala isha u gala. timaha indhaha oo gudaha u gala. dry eye indha khaleelka inta badan asigan corneal ulceration oo sababa. poor blinking reflex asigana dry eye oo dhacsiisiya waa qofka inay yaraato blinkingkiisa in isku qabashiisa inay yaraato. marka natiijada ka dhalanayso mataqaana visual prognosiska
depend on waxay ku tiirsan tahay severity. Waxyaabaha ka dhalanaya marka corneal ulceration kadib markuu dhaco waxaa ka dhalanaya bacteria flocculi, bacteria badan oo inay soo gasho jirka kaasoo ku sababeysa infection kadibna disease ay sababeysa. Sidoo kale host defense mechanism inuu dhaco, host defense mechanism inuu dhaco. Sidoo kale primary ulcer iyo ugu dambeyntii natiijada ka dhalanaysa wuxuu yahay mataqaana effectiveness inuu noqdo inuu waxba u tari weyso treatmentiga qofkaasi. waxaa jira marka subsequent therapy daawo loo sameeyo bacterial keratitis-ka bacteriada ku dhaca hadduu yahay pseudomonal ulcer hadduu yahay waxaa loo sameeya topical and conjunctival treatment. hadda midka ugu horeeya daawada la siiyo waxaa waaye tobramycin, ta kalena waxaa la siinaa subconjunctival injection oo cirbad ayaa la isticmaalaa. tan labaad bacteriadan streptococcus-ka haddii lacal ulcer sababto waxaa la isticmaalaa penicillin qofka inta badan la isticmaalo group of penicillin lagu daaweynaa. ugu dambeyntii gram negative ulcer hadduu gacal bacteriashan oo gram negative roid hadii tahay gram negative gobkale hadii tahay dhabaar hadii tahayna waxaa la isticmaalaa topical gentamicin. waa idinkaga mahad celinayaa cashirkeena fungi keratitis-ka intaan soo gabagabeynayna. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.